shacbigu wuxuu doonayaa isbeddelkiina idinka hogaaminaya waxaa muujinayaa isu soo bixinan wuxuu ka jawaabayaa hadalkii cali mareexaane shalayto ee hawladani wuu ka baxay saaxadda sow sidaas ma aha in baa lagu yidhi baa la yidhi faraskaagu wuu heriyo xun yahayoo saa dambaad garan mooye waxaan leenahay burca hadalxumadiinni way ka jawaabtay waxay kaga jawaabtay waxaa arkaysaan walaalayaal maanta waxaynu doonaynaa doorasho xaro xalaala waa la tartamayaa barnaamij siyaasiya lagu tartamayaa barnaamijkeenna innagu waynu soo bandhignay shacbigaynu u sheegnay waynu ugu celcelinnay waxaanu doonaynaa barnaamijka nagu doorataan waxaynu qiimaynaynaa xukuumadda hadda joogta maanta iyo burco iyo ballanqaadyadii kulmiye waxaa ka mid ahaa inay garoonka burco ee dayuuradaha dhisto dayuuradima timaadaama dhisan yahay waxay ballan qaaday in garoonka kubadda ee elmis ay dib u dhisto oo roog cagaaran dhigto ma yaallaa roogii cagaarna maxaa ku dhacay runtibayso maaha waxay ballan qaaday inay suuq casriya dhisto suuqiina wasiir cali mareexaan baa baloonaystay iyo jira hadda ma jira sow maaha waxay ballan qaaday xukuumaddu inay dadkii caygoobay dawladejiyu samayso oo la dejiyo waxaan soo marray shalayso dadkii abaaroobay halkay degeen waxa la siiye iska daa waxay maalin walba waxaa naloogu goodiyaa oo naloogu hanjabaa in cagaf nala mariyo weliba waxay aad uga cawdeen badha sababkii hadda jooga waxaannu aragnay oo ay yidhaahdeen waxaana lagu yidhi hadda meelihii aad wax ku aasi jirteen kuma aasan kartaan xabaali horena kama baxabaana laygu yidhaahde weli hore uma maqan wax sidaas oo kalaa walaalayaal waxaynu ka warqabnaa gobollada togdheer sool iyo sanaag dadka ku abaaroobay ee ku caydhoobay waxaa lagu qiyaasay ilaa 47 kun oo qof waa jira lacagyo u badan oo loo sameeyey oo loo ururiyey oo la yidhi dad baa loogu xoolaynayaa cid la xooleeyey miyaa aragteen walaalayaal annaga barnaamijka iyaga waxaa ku jirta in dadkan dad nolosha loogu soo celiyo la dejiyo la xooleeyo iyadoo laga bilaabayo kuwa burca degan oo dhulka loo sharciyaynayo ama dhul sharciya la siinayo haddii ay ka dhigo waxaan doonaya in halkaga dhawaaqo waxay nagu soo dhaqdhaqdo had iyo jeer abaaraha oo sanad walba indha haleela innagoo wax tabaabushaa ka samaysan waxaa noo qorshaa in laga hortago abaaraha maxaan samayn doonnaa waxaan samayn doonnaa hay-adda ka hortagga abaaraha oo lagu dhammaystiri doono sharciyadeeda hay-addaasi waxay abuuri doontaa kayd aynu ka yeelanno abaaraha waxay beeri doontaa calafka xoolaha oo la kaydiyo oo la isticmaalo xilliga beeraha xilliga abaaraha waxay samayn doontaa seerihii waxay samayn doontaa inay reermiyiga xilliyada abaaraha xoolaha badbaadiso haddii ay badbaadin kari weydana iyadu ka iibsato si ay u badbaadiso walaalayaal waan jecelahay inaan erey ka idhaahdo naftayda waxaan ahay musharax waxaan togdheer iyadoo midaysan weydiisanayaa
عد كده عد كده عد كده يسمى الله أبوي قلبي منا عينه صدمها عمرها وما سنتي كل هذا كشيء يلا وكذا بس بيقول لي موسى حمر لكن أنا وكوي هذا ما يمر وأنا دونينا يقول سوميلا في قبل أيام الشعب يقول سوميلا يقول هذا الله كذا وهذا أنا أتركنا وجاهد لماذا رزقك فهذا دونيسي وأنا نقول بابا وأنا رئيسناي إنك سنة قاعدتني إن أنكرك كسومال لم يقف فايدة بدنا نعم قاعد شوقي وغير دعمه ولا شوقي لكن ودي ولا شوقي أنا ما كان مسكت شوقي رجع صوص عري المتعلمين تاعها PhD لستي وأقول هذه هي شوقي بولال بس وصاي بولال وده دكتوراه هو قال دولة كتيران وهو قال مرايك تشوجان وهو قال برعي تشوجان مانتا وعلى كتيريش كأنك هو قبطي هو يقبضك مانتا حيل كدولية واحد بدل إنك تردان معي من ديننا مرأة وده هو موجسين من يسنتين حكومة وطني وحكومة رجال الشعب الصومالي وحكومة دوليسة إلى يمدنمو هي عدالة هي شغابور هي لدقالك السعر بركة هي كروغالية الرشا إذا مضى هي شغالة الدولة مصريسا